aniga kaliya waxaan rabaa inaan meeshan aan ka sheego horta ilaahay maaragtay Soomaali hadaynu nahay ilaahay horta qalbiga naga hayso keeno waxaanan dhihi lahaa Soomaaliya waxay u baahan tahay nabad waxay u baahan tahay nolol Soomaaliya inay nolol hesho oo nabad ay hesho waxay ku xiran tahay annaka oo Soomaalida ah annaga ayaa nala ka rabaa inaan isku xirnaano dadka dibadaha jooga iyo dadka gudaha jooga way kala fog yihiin aniga Soomaaliyan ka imaaday wax badanna waan soo joogaa bariyahan waan soo laabtaa Soomaaliya waxay u baahan tahay wax nolol u sameeya uma baahna wax dhibaato u keena madaxweynahanaga Xasan Sheekh Maxamuud iyo Prime Ministerka Saacid waxaan anigu oran lahaa Soomaalidu waxay u baahan yihiin mas'uuliyiintaas wasiirada haday ahaan lahaayeen haday dadka kale ahaan lahaayeen iyo dadka localka aba waxay u baahan yihiin dad isu keena oo maaragtay dadka kala shaqeeya nabad ayayna u baahannahay nolol ayayna u baahannahay mideeda kale wadanka waxa weeyaan shaqo la'aan dhalinyaradana shaqo la'aan baa haysa ciidankanaga waxay u baahan yihiin dad caawiya marka waxaynu rabnaa inaynu isku xirnaano oo aynu isu imaano oo meel kasta aynu joogno wax wanaagsan aynu isu sheegno dawladdanada aan wax wanaagsan ka sheegno haday wax ka qariban yihiin aan u sheegno maaha inaan dib aan adduunka aan ku noolaano hadaan dibad joogno iyo hadaan gudaha joogno inaan isu imaano oo isu niyad fayoobaano oo maaragtay aan dadkanaga kor u soo qaadno ayaan oran lahaa